السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي واني سلامي كسو هذا جنال تيمون علي oo aad ugu barateen muuqaalo ku saabsan PUBG laakiin maanta muuqaalkeena waa uu ka duwan yahay muuqaalada aan janaalkan soo dhigi jiray maanta muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa tips and tricks waa tactical loo isticmaalo ama xirfadooyin loo isticmaalo PUBG mobile markii aad dagaal ku jirto maanta waxaan ka soo qaadan doonaa 5 qodob marka haddii janaalkan ku cusub tahay aadan weli subscribe aadan saarin fadlan subscribe saar ama haddii janaalkan aad hore u taqaanay oo aad daawato muuqaalada laakiin aad subscribe aadan saarin I don't know whether you're doing please subscribe saar sidoo kale like saar muuqaalkan waxay iga caawinaysaa inaan ogaado inaad muuqaalka ka heshay marka waa intaas asxaabta ee ku soo dhawaada midda koowaad waa gurigan oo ku agyaalo bukiinka agtiisa waa caan dadka badan way yaqaanaan marka haddii lacala cadowga uu ku kambareynayo jaranjarada ugu dambeeyay ee guriga ha u korin haddii aad u karto waa halis si fudud ayuu ku dili karaa marka waxa sameynaysaa waxay tahay banaanka ay amaanaysaa guriga barandadiisa banaanka meeshan kadib waxa sameynaysaa waxay tahay waxa tuuraysaa bambaqiic oo been ah sababta bambada aad tuurayso wax kale ma ahan waa cadowga in uusan maqlin codkaaga markii aad korayso albaabkan aad koraysaa marka dambe kadib markii aad korto saas aad koraysaa kadib cadowga meesha uu joogo ujeeda kadib waa dilaysaa midda labaad waa iskuulka dhismaha dhaadheer waxaa laga yaabaa cadowgaaga inuu ku kambareyna meesha ugu dambeyso iyadan ha korin waxaa sameynaysaa haddii lacala ogaato gurigan kala imaanaysaa kadib meeshan si fudud ugu boodaysaa kadib waxyar dhankan u baxaysaa haddii aad haysato bambo dabqiic wax haysatid ayaa u isticmaali kartaa markaas xitaa haddii aad haysatid qori waad ku dili kartaa oo aimka ku saxsan yahay midda saddexaad waa gurigan waa caan waa dadka kambaraya si fiican u yaqaano marka gurigan cadowga wuxuu sameeyaan jaranjarada ay ku fadhiisanayaan waxay sugayaan ilaa aa u imaado marka haddii aad rabto inaad si fudud u disho waxaa sameynaysaa gaari ayaa soo qaadanaysaa kadib waxaad ku baakimaysaa iridda agtiisa iridda si fiican ay ugu baakimaysaa kadib bamba ayaa tuuraysaa oo qiic ah mar labaad sababtan wax kale maahan codkaaga si uusan u maqlin markii aad gaariga meeshaas ugu korayso kadib markuu qiic bilaabo waxaa sameynaysaa gaariga ayaad ku boodaysaa kadib waa sii boodaysaa oo meesha aad koraysaa cadowgaaga meesha uu joogna hadda waa arki kartaa kadibna waa dilaysaa midda afaraad waa gurigan mar labaad oo bujiin ku agyaalo agtiisa haddii la cadowgaagu meesha gaari dhigtay uu ku qarxiyay aadan awood u lahayn inaad korto waxaa sameynaysaa banaanka ayaa imaanaysaa oo baskan ayaad ka kori kartaa saa u kori geeska ayaa tagaysaa oo geeska ay ku boodaysaa kadib waa kasii boodaysaa kadibna waa u gali kartaa haddaa rabtid meeshan ka kor haddaa rabtid ugu tag saa rabtid samee midda shanaad haddana ugu dambeyso haddii aad rabto in cadowgaaga bambo ama dab inaad ku turto laakiin aadan si fiican u arkayn waxaa sameyn kartaa isha ayaad wareejinaysaa isha waxay kaa saacidaysaa inaad si fiican u aragto cadowgaaga meesha uu joogo si fiicanna aad ugu hobsato si fiicanna aad ugu dhigto that is it marka waa kaas asxaabta waa kaas marka si fiican ayaad u arki kartaa kadibna waa dili kartaa marka waa kaas asxaabta maanta muuqaalka inta uu ku egyahay haddii muuqaalkan aad ka heshay fadlan like saar waxaan ogaan inaad ka heshay sidoo kale commentiga ku soo qor muuqaalo kale ma ka soo sameeya mise marka intaas waay subscribe na hilmaamin waa maasantihiin mar labaad assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh muuqaalkan muuqaalkiisa inoo balan ah maca salaama